shirweynaha beesha Khaatumo oo ku socday kuna qabsoomay magaalada Muqdisho ayna soo agaasimeen bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Banaadir kana soo jeeda reer Khaatumo waxaan isugu nimid gabagabadiisii maanta warmurtiyeedka ka soo baxana lagu dhawaaqi doono waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha community-ga gobolka Banaadir Cabdifataax Maxamed Cali ay shirweynihii la isugu yimid ee maalmihii aan soo dhaafnay inooga furmay 13 July 2017 inoo furmay aan rabnaa hadda inaan warmurtiyeedkiisa akhrino hadduu allay warmurtiyeedkii shirka hordhaca u ah shirweynaha Buuhoodle waxa isimada beelweynta Khaatumo ay isugu yimaadeen kulan wada tashi ah siyaasiyiinta waxgaradka ururada bulshada sida haweenka iyo dhalinyarada khamiistii ay bisho ahayd 13 July 2017 magaalada Muqdisho si ay isula gorfeeyaan xaaladaha deegaanada SSC iyo arrimaha muhiimka ah ee taagan kulankaas waxa ka soo qayb galay isimada beesha xildhibaanada golaha shacbiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Khaatumo madaxweynihii hore ee Khaatumo gudoomiyaha iyo xubno ka tirsan golaha guurtida ee Khaatumo oo kulankan u yimid xubno ka tirsan labada gole ee Khaatumo siyaasiyiin waxgarad guddiga haweenka iyo dhalinyarada beesha wuxuu kulanku ku bilowday dood dheer oo lagaga hadlay waxyaabo badan oo ergadu u aragtay inay muhiim u yihiin horumarka iyo mustaqbalka beelweynta Khaatumo waxaana si gaar ah diiradda loo saaray shirweynaha Buuhoodle oo loo ballansan yahay iyo arrimo qoseeya shirka lala yeelan doono madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ergadu ay dood iyo iscalool xarasho ballaaran sameeyeen waxa shirku go'aamiyay arrimaha soo socda in la wada taageero oo si baaxad leh looga shaqeeyo midnimada iyo wadajirka beelweynta Khaatumo iyo midnimada Soomaaliyeed 2 in si xoog leh loo taageero isku tashiga beesha iyo ayaka talinteeda 3 in si wadajir ah loogu istaago dib u heshiisiin ballaaran oo ka dhacda beesha gudaheeda si midnimada u noqoto mid waarta shirweynaha Buuhoodle wuxuu shirku u muujiyay ayidaad iyo taageero xoog leh shirweynaha Buuhoodle ee isimadu ku dhawaaqeen hase yeeshee wuxuu shirku ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay qabanqaabo muuqata oo hordhaca waxa shirku si gaar ah u tilmaamay xagga amniga iyo dhaqaalaha shirweynaha waxayna muujiyeen baahida loo qabo ku dadaalistooda waxa shirku isku wada raacay in guddi farsamo oo qaban qaabista shirka si degdeg ah loo magacaabo taasoo fududeyn doonta howlaha ballaaran ee loo baahan yahay diyaarintooda waxa shirku isku raacay in beelweynta qaybaheeda kala duwan xataa haddii ay siyaasiyan kala duwan yihiin ama maamulo kala duwan ku jiraan in lagu marti qaado shirka si tala midaysan oo dani ugu jirta beesha iyo deegaanada SSC loo gaaro waxa shirku go'aansaday in shirweynaha loo isticmaalo iscafis isturxaan bixin iyo go'aaminta kama dambaysta ah ee mustaqbalka lagu jihaynayo kulanada lala yeelanayo dawladda federaalka ee Soomaaliya 1 waxa shirku taageero mug leh u muujiyay talada isku tashi ku salaysan iyo xaqa ay beelweynta Khaatumo u leeyihiin ayaka talintooda in dawlad goboleed la aqoonsan yahay oo ka mid noqota dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya waxa shirku soo dhaweeyay isla markaana ayiday talada ah in taageero loo raadiyo maamul goboleed la aqoonsan yahay waxa shirku u soo jeediyay baaq dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo beesha caalamkaba in beelweynta Khaatumo ay sugayso kamira dhaleyn ku saabsan aqoonsiga dawlad goboleedkooda 2 waxa shirku isku waafaqay in dawladda federaalka Soomaaliya looga raadiyo deegaanada SSC wixii ay xaq u lahaayeen xagga mashaariicda horumarinta mucaawinada dadka tabaalaysan ee abaartu barakicisay iyo ka taageeridda xagga amniga الله مهله أخرجوا إنه أخريي
communiqueegii ka soo baxay shirweynihii beelweynta khaatumo isugu timi bisha 13keedii aad iyo aad ayaa ay u eg tahay ama ay tahay in guul laga gaadhay danihii laga lahaa shirkaas iyo isu ururinta iyo midaynta loo samaynayo beelweynta khaatumo ama beelweynta marka waa laba kelmadood oo isku mid ah beelweynta SSC ama beelweynta dhulbahante waxaan anigu ka dareen celinayaa haddii dad kulleyba wax ka dhaxeeyaan tala ka dhaxayso lama waayo wax sameeya qoljeex ama deelqaaf gudaha ka yimaada ama dibaddayada ka yimaada waa wax caadi oo bini aadamka had iyo jeer ku dhex jira laakiin murtida hadalku waxa weeye mahmaahda Soomaalida ee la yiraahdo libaax intuu dhogor leeyahay laguma dhaco haddii beelweyntaasu ay midaysan tahay qof dibad iska badaaya ka gudaha jooga wuxuu noqon lahaa qof dadka qiimihiisa garanaya ka dibadda naga soo hujuumaya ee doonaya inuu ka baaca mushtaro wuxuu sameeyaba wax kasta ha noqoto mid lacag nagu daya mid nagu daya darajo mid nagu daya ballanqaad waxaas waxaanu kaga gudbi karnaa inaku daacad isu noqonna niyad fiican istusna waxa aynu wanahay og oo sharafta iyo karaamadii aynu lahayn ee taariikhiyan aynu u lahayn saynu u soo celin lahayd dariiqeeda aynu hayno taasuna midnimadaasay ku imanaysaa aynu u ballansanahay shirka khaatumo ee garaadadeenu horseed inoogu yihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa qof waliba inuu taas ku tahanbaabo kuna tashado wixii ka soo baxana ilaahay inoo horgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullah الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتسليم madaxda faraha badan ee golahan fadhida ee isabale ee xildhibaanada leh ee gudoomiyayaal leh ee madaxweynayaashan la tixraacay tii hore ee khaatimo iyo ka imika ku xigeenka abale inta isu timi iyo inta codkayga maqlaysaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib saaka waxa la igu horreysiyey marka wufuuddu socota ee siiba wasaaradda waxbarashada dhalinyarada ku wanaagsan tacliinta yaa safka la soo maraya hore waxaa la yidhaha brig isis indhajabiyayaal weyn saaka anigana brig isis aan noqdo indha cadow aan jabinaya indha cadowna ma jira oo cadow wixii abaan jabinayaa innaga indhaheenna waa waxaan leeyahay ilaahay ha nuur oo aragga ha u kordhiyo ta labaad warqadda la akhriyey kumarkeygaa la akhriyey waa kii intaa shirkeeda ka soo wada baxay qof khilaafsanina ma jiro kii qarsanayaana ha qarsado kii badheedhayaana amba waaniga ay ogeydeen badheedho eene waa isku raacsana qofka gabcuu leeyahay oo lagu leeyahay oo madax buu leeyahay xagga isugu yimaada qofka laftiisa isugu yimaada ma qof oo dhaqaaqo midnaha kala hadho waxa aynu magacyo leenahay ee qoran magacyada qoran ee faraha badan waa abdimada iyo madaxa oo kale kulli waxay isugu yimaanayaan magaca beesha isugu yimaanayaan cidayna ha dhibsan cidayna cadawga ka dhigan waa wada magacyadeeni kii xarfayhiba ma qofka weyn buu ka turjumaya taasna aan sidaa u garano waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa raggii soo habeeyey iyo ragga howlaha badan galay waxaana la isku raacsan yahay oo weliba anigu si adagaan u sii adkaynaya carab midnimada kow maamul madax bannaan oo ay dhisato beeshu dhisato iyo ciddii ku raaci karta ee la gelaysaaba taasna saasaan u adkaynaya
ciddii maqalsha ee hadhow sheekaysan kartayba taladu hortaaday imanaysa shirweynaha Buuhoodlaa la isugu imanaya iyo meeshii kale haddii loo gartaba halkaas uma magacaabane waa in laga wada qayb gala oo qofkii ra'yi aayale keena iyo qofkii wax cusub keena iyo qofkii meel kala jecel waa in la isugu yimaadaa oo tala loo midaysan yahay oo isku mid ah oo aadaha rasmiga ah ka talinaysa waa in la isugula yimaadaa halkaa taasuna waa sidaa shirkaana dad baa laga yaabaa inuu meelaha leeyahay mar haddii sidaaba la yeelo sidaa loo fakeray waa inaan la isuba tegin war waa in la isu yimaadaa oo ciddii wax diidanayba halkaa ku diidaa oo ciddii wax dhisatay halkaa ku dhistaa oo wax dadka ka dhexeeya oo magaciisii halkaa laga soo saaraa waa laga yaabaa in qola aanu xagga ka deganahay oo aanu sheekooyinku naga dhexayn jira tiraahdo Puntland baa xumaysan waa ka cadhaysan yahay war ma aha weligay baan midnimo doonayay weligay baan beesha midnimadeeda doonayay weligay baan Soomaali midnimadeeda doonayay sidaasoo dhan baan u doonayaa midnimada waa anigii waqtiya shirar hore oo waaweyn waa taan ka idhi niniga fiican waa jira niniga cilmi badan waa jira laakiin niniga wadanisana ma jiro wadaneeda waxaa ku muujinayaa inaan mar walba midnimada Soomaaliyeed iyo meeshii walba midnimada joogto waa taan maalintii dhaweyd lahaa isu celiyaa la yidhaahda Soomaalida oo dhan baan isu celinayaa tolkay baan isu celinayaa raaskaygaan isu celinaya qofkii Soomaali ka baxow adaa cadow cidla kaaheli qofkii beeshiisa ka baxow adaa cadow cidla kaaheli qof walba midnimada ka shaqee oo waa sidii ilaahayna yidhi واحتسبوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انت وعسكا هذه يقول مر هدي سيدا إلهي يدي يينا آيات إلهي أو قرآن بينين أكو سعنو ومن دماغ كشقينو هير كستا يقادبا وهذا اللي كسوا قابين هي دولة دان فدرالك أي هؤلاء هذا والذين خرجوا قدم الله سبحانه والنظام ورأسهم لقوة الصعود يعني كسوا لقوا قابين هي iyo cidii kale laga maarmi waayaba annagu hadaan odayaashana iyo cidii nala raayay waxaanu u gutana oo ciwaamada qoorta u xiran inaanu soo celino haybadiina iyo sharafkiina iyo waxa ahaan jirteen oo aanan cidda ku xadgudbin oo aanan cidda wax u dhimin aayaha iyaga uu ka tashano kuwa nagu caaridaya ama nagu caadayo muraadka bali waxa doontaa dhaha ilaa aanu ka bidhalino joojin bayno meeshii dantu gashaba waa u gelinaa taasuna sidaa weeye waxaan ku soo gaabinayaa ciddii maqlaysa codka iyaga ah shirweynaha ka soo baxay ciddii awal baqiira ku jirtay ha u diyaar garowdo shirka la isugu imanayo xoolaheeda iyo xooggeeda iyo xigmaddeeda mid walba ha u diyaariso halkaa magacaynu leenahay oo qiimanaha ka soo baxo waxaan soo ku gaabinayaa midnimo beesha ka bilaabata ilaa Soomaali aynu ka shaqeyno taariikhda laguma cayaaro waxaynu u rogmanoo dadka maanta u tira leegnahay waa u badnayna rogmashadii loo dhintay daraawiish lagu dhintay ee gaala lala jahaadayay ee dowladnimo lagu doonayay taariikhaha dadku waa ilaawaayeen waxaan garanayaa intii dhashan malaa nin baanu isku dhowdhowna xagga da'da markaan xoolaha aroorka ah wada yaryarayn reeraha aanu dulmarayna reer miyiga jooga iyo kuwa yaga iyo kuwa waliba waxay odhan jireen ninka cabanaya Cabdullaahi Ciise cadaanka dhexdiisa Allah caawiyay hees kale ma jirin bariga markay sidaa ahayd wuxuu yidhi United Nations ku tagay waxa la yidhi maxaan dawlad ku helaysaa halka maamulihii xamar buu la soo hadlay wuxuu yidhi saas la leeyahay waxa la yidhi daraawiish qabso soo waxdu ku soo noqday xafiiska iyo war maxaa isla halka maamulihii daraawiish baan lahayn gaalada badxay saartay war waa iyagaba heelka badan halkaas ku dhamaatay taariikhdan inta u soo baray hawsha u galay ee quruumadani ku gooyeen in maanta si fudud loo kala gooyo dalka dawladnimada lagu cayaaro inta qof dhaga nool yahay yeeli mayno meel cid kastayna tirso cid kasta isku kaayaha leh wixii kala gooy wada ama gudaha iyaga ha ahaato ama beela kale ha ahaato meel barna dhaloola iman ma yeelina bayno inta aanu maskaxdayda qabno xoogga iyagu nool yahay waana taladii baa naga yar firidhaye waa diyaar garoobaynaa waa midoobaynaa haybadayadii iyo sharafkii baanu soo celinaynaa kii Soomaaliyeed baanu soo